السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa raadiyow dhan walba u rafo. halkani waa raadiyow maxaan faa'iidnay. halkani waa raadiyow dadka nagu xagee joogaan. halkani waa raadiyow ma xisaabtantay. halkani waa raadiyow dhageyso ama ha dhageysanin. anigu waxaan ka hadlayaa danta dadkayga. halkani waa raadiyow qofna ma necbi qofna ma jeceli balse waxaan ka hadlayaa danta dadkanaga. markasta waxaan u taagannahay in aan kala garanno yaa noo roon yaase noo daran. waxaan rabaa inaan dhaho waxaan hambalyaynayaa horumarka ay ka gaareen tallaabaday hore u qaadeen Jubbaland oo lacagtiina ka dhamaysay odaygii kaaraan joogay kadibna afka ciidda u geliyay baardheere. daaroodku waa faahimiin naftooda kuma xumeeyaan sida habar gadir ee naftooda ugu xumeynayso. sidoo kale Puntland waxaan u hambalyaynayaa horumarka ay ka gaareen la dagaalanka khawaarijta daacish iyo qashin. ma aha wax la qarin karo horumarka ay sameeyeen. waxaan rabaa inaan dhahno gobta aan ciilka qabin shaqo kama dhigato xaqiraada walaalkeed. balse waxaan rabaa inaan sheego waa maxay sababta cabdi qeybdiid ay reer kaaraan isaga laalaadiyeen. taasuna waa cabdi qeybdiid hadalkii dhulgariirka ahaa ee uu sheegay shanta qof ee caadaqaatayaasha ee habargidir ee cabdi qeybdiid ka laalaada ayakana waxaan rabaa inaan mid dhaho. kuwa ku eeganayana waxaan rabaa inaan mid dhaho. waxaan rabaa inaan saa u kala qaadqaado. marka hore qodobadoodu waxay tahay macaamiisha dukaamada iyo maqaayadaha habargidir iyo canshuurta laga qaado ayaa sinaan raba. waa maxay shaqada reer kaaraan? waa canshuur qaad. waa maxay shaqada reer habargidir? waa uraagona maxay qabataa? ganacsi samaysaa. yee culays ka saartaa dadkeeda. caaway waxaa habargidir ay qaarkood naftooda u sheegayaan xasankaasaa gaarsiiyey inay yihiin kuwa daarood la dagaashan. laakiin ogow canshuurta waxaa qaadanaya wiil ka yimid boosaaso la yidhaahdo haddii ilaahay ku roon yahay ee diyaano. waxaasoo dhan weligay ma arkin. dukaankayga ha baaba'o hana burburo khasaarana aan galo waxbana yaanan faa'idin. dukaan waxaan ku xumeynayaa reer hebel. wax rag loogu mahmaahanin gabar kuma aarsan karto jirkeeda inay tiraahdo nin walba suu rab ha ka yeelo. Donald Trump wuxuu yidhi Chinaha jacayl gaara kama qabo laakiin TikTok waxaan ka rabaa sheerkayga. This is normal human being ka fikiraya kaas waay. caqliga abgaalo saxda wuxuu yahay Yusuf ka ilma ku koramay USC ilma ku koramayso. waxaan rabaa marka inaan dhaho gruubka yarka ee habargedirta ee la maalgeliyey ee caqliga badan aan lahayn. waxaan rabaa inaan dhaho waxaan ka xumahay in odaygii abaabulahaa ee haddii ilaahay ku roon yahay gaarigiisa iska watay iska shaqaysanayay tiitalkiisuna uu ahaa lama dowla isdagaalow haysa in caaway cabdi qeybdiid way qabataa inuu caayo guryaha qabyaha lishiigu hayaa. haddii ogow cabdi qeybdiid global ayuu ka dagaalamayo wallaahi iyo billaahi iyo tallahi. global waxa kee waa kaaraan waa fagax waa beexan waay guri kama sheego. taariikhda noocaasa laakiin ma dhicin nin ciidan wata abgaala oo saybiyaano ama lambar 4 caan ah oo habargedir gurmud ugu yimid ma jiro. laakiin goobaan la iyo indha cadde iyo cabdi qeybdiid ragoodii goob waxay ku dhammaadeen meeshii la dhihi jiray global. laakiin waa dagaalnay iyo waa dagaalanaa. siyaasaddu waxba kama goyso. waa xisaabtanaa waana xasuusanaa wax ka goysa. caawa waxa baashaadaya oo haddii ilaahay ku roon yahay welisaqadii gadoonka dheelaya oo aan loo dhowaa karin waa nimankii tolkay ogaadeen oo 100 sano ka jabnay wax la caayaba.
waxa aan aqoonin lacagaana la siinayaa iyo haddii ilaahay ku roon yahay waxba ma iloobaynana waa mariixaan gada jooga oo leh hana waalin xasan sheekho waa isnaqaanaha waxaa cabdi qaybdiid caynaya waa habar calaseeyo miiran waana uu waayay cabdi qaybdiid habar qaraaba la ah oo difaacanaysa waxay ka baqayaan ma garanayo waan aaminsanahay caydii ka dhex dhacaysa mahad iyo ninka leeyahay liibaan axmed liibaan shuluq baawer ninka loo bixiyey caydii ka dhex dhacaysay ee habargeer u dhexaysay ayaa ka macno badnayd sida habargedir ay cabdi qaybdiid uga falcelisay iyay cabdi qaybdiid is haystaan yow ka nixiyey muxuu yidhi cabdi qaybdiid dadka waa la dhibaateeyey kow guryahina waa laga qaatay labo noloomana samaynayo inna la yidhaahdo karfantiini waa tanaaye godkiini qota oo maxay tahay hal midaa fahmi kartaan ku sheegaa khawaarijtu waxay sameeyaan inta qof soo wacani waxay ku yidhaahdaan $20 baan kuu soo dirnay ee karfantaada iibso waa lacagti karfantii qaado habargeer waxaa la yidhi wiilkaas dheer oo shaakada weyn leh ayaa xildhibaanada idin soo xulaya magaciisana waa habargedir waa karfanana la siiyey haddii aadan saa u fahmaynin oo aad daarood ku xumaynaysid ayna gacali orod haddii ilahay gujirkaagana daarood ku xumee xasan sheekh maxamuud iyo ciddiisu daarood lama dagaashana soomaali kalena lama dagaashana ma jiro nin halgamaa abgaala in the history saadhe in the history taariikh nin abgaalo hole ma jiro ilaa habargeerow caayay habargeerow ku maadaystay habargeerow in badan ka sheegay sida farax gololey ama habargeerow caayay ama dagaalkooda qayb ka noqday ama cadow u soo raacay ma la soo helay nin kale abgaala oo history leh in 100 sano lama soo helayo ma garan kara marka say u gartaan waxa cadowgooda uu yahay iyo sidaanan u garan senator muuse suude wuxuu yidhi muuse usugaale habar iyo gabar kastoo haddii ilaahay ku roon yahay caga ballaaran oo qaraabo la ah way taageereen waxay ku taageereen inuu been naga sheegayay cabdi qaybdiid yimid wuxuu yidhi xasan baa leh yaa kaloo qaadanaya cashuurta yaa kaloo iibsanaya waa usugaale waxaan rabaa mid inaan dhaho habargeerta ila hadlaysa waa ii aaray cabdi qaybdiid midaasan rabaa kuwa isoo wacay habargeera waxay ugu dhaheen cabdi qaybdiid naftiisu u hadlayaa waxaan ku iri inuu naftiisu u hadlo maxaa dembiga ku jira waxay ugu dhaheen cabdi qaybdiid gurigiisu u hadlayaa waxaan ku iri abaabulaan ka maqalnay laakiin guriga cabdi qaybdiid iyo guriga muuse suude uu degan yahay kaa mudan in la ilaaliyo taytal ahaan geesinimo taariikh xogogaalnimo iyo eedda uu habargedir u galay waxay ugu dhaheen cabdi qaybdiid waxay isdagaaleen caydiid waxaan ku iri muuse suude iyo calimahadib waa isdagaaleen ma la socotiin mise ma ogdin mahan makaya madiinaa la yidhaa calimahadi kama talsho manaw yimaado waa la dilaa maalin kastuu dhihi jiray yaa ka haya cabdi qaybdiid hadal u leeyahay caydiid aan isdagaashannahay mase la socotaa in ree ayaanla dhexdooda mararka qaarkood xabad isaga fakarto ma la socotaa in haddii ilaahay ku roonyahay abgaalka ay isdilaan oo dad u dhexeeya dhibaato dhex marto siyaasaddii noocaas ahayd ee dhacday sacadkii ka shaqaynayay xataa reer wala ka mid maahayn hadda idiin sheegaa reer jalafna ka mid maahayn kuwa injiraha jira oo sacda injir ah waxna aan iska dhici karin wasaq ahaa jirta kuwaasoo weligood noolaada markay habargedir leecdo inay leecdana ka shaqeeya mana bareeri karaan weligoodna go-aan maqaatan fiican kuwa qashinka ee noocaasa waxaan rabaa inaan dhaho war walaalayaalow aniga cabdi qaybdiid ma ahane walaalkay caawa mahad salaad hadduu xasan sheekh maxamuud lugaa ku dhego mahadow soo dhawow aan leeyahay laakiin midaan diidanahay
haddii ilaahay ku roon yahay kastuumo dhiig leh iyo futo dhiig leh iyo af haddii ilaahay ku roon yahay af doqomeeda oo aan xisaab ku socon kadibna gaarsiisan caawa maariyaa 84 baan jiraa xamar waa isaga tagahayaa in canshuurta ninka eylaha iyo haddii ilaahay ku roon yahay ninka majeerteen ka soo habaaba iyo ninka haddii ilaahay isaaq ka soo habaaba iyo ninka haddii ilaahay boontoef ka soo habaaba in la yidhaahdo mahaas canshuur saaro mahaan ka qaado mahaan maqayraas ka qaado in la yidhaahdo caadi haddaa u aragtid dowladnimo aa ka dhacday ganacsigan lagaa baabi'iyey dadkaagana dhuunta lagu dhegay keligaa waaye hadda ogow keligaa aa cashuur dangooda bixiya habar gidir markee dowladda waxba kuma lihin